xilli saacadii ugu dambeeyay baraha bulshada ay ku xiriireen lagu daabacay boorar ay ku xardhan yihiin madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana la sheegay in beledweyne lagu qabanayo banaanbax lagu taageersan yahay ayaa dhinaca kale waxaan gib ahaanba maanta dhicin banaanbaxaas oo xalay la qorsheeyay inuu maanta ka dhaco beledweyne waxaana ciidamada ammaanka ee maamulka Hirshabeelle gaar ahaan booliiska ay xireen guud ahaanba wadooyinka magaalada beledweyne taliyaha qaybta booliiska Hirshabeelle ee gobolka Hiiraan Korneel Cali Dhuux Mahad Alle iyo gudoomiye ku xigeenka amniga gobolka Hiiraan Maxamed Beeris Cisaaq ayaa si wada jir saxaafadda ugu sheegay in banaanbax aysan ka warqabin laamaha ammaanka gobolka iyo maamulka Hirshabeelle aysan ka dhici karin beledweyne banaanbax aan sharci ahayn oo maamulka la soo wargelin oo aan hay'adaha amniga la soo wargelin oo aan fasax loo qaadan oo xilligan ammaankeeni qatarta ku yahay lagu soo beegay dad wax ma garada in wax inta dhagaa loogu soo shubo banaanka la keenay tahay waan diidnay ma yeeli doono abni xumada ka hortagayno kamid yahay cid mas'uul ka noqonaysa maaha 400 canug oo reer Hiiraana inta loo soo dhiibo iyo kuwa darbiyada jiifo garamaystayaal iyo dadka aan maskaxdooda isku filnayn inta loo soo dhiibo laba saddex qofood meel ku shawrto inay intay u soo dhiibaan fikir ay maskaxda uga soo shubaan ama walax yar oo xishaa soo siiyaan ay yiraahdaan tuuriyada magaalada oo ammaanka magaalada qatar la geel ammaan darrada aan ka hadlaynay kamid tahay cidii mowqifkeeda muujinaysa xor bay u tahay waa inay yimaadaan waa inay maamulka warqad ka soo qaataan waa in hay'adaha amniga la ogeysiyaa waa inaan ammaankooda ilaalinaa intay bannaan baxayaan waa inaan meelaha qatarta uga imaanayso ka sii xirnaa waa inaan dusha ka eegnaa waxa meesha ka socda laakiin bannaanbax iska socda oo meel ka socda meel kaysa ahayno dawladdii iyo maamulkii iyo wixii halkan ka jiro abni yahay aysan waxba ka ogeyn sidaasoo sharci darro ku yahay sharci darradu yahay ku joojinay hadduu jiray saasaan ku joojinay hadday soo wadaan ma ka yeelin waxaan rabnaa booliiska asiga ah waxaysan ogaanin oo maarta gudoomiyihii gobolka uusan ogaan oo laamihii kale amniga aysan ogaan inta qof bilaadan oo shacab intuu isku soo mutaxo yiraahdo maarta ay sheegay micnaa banaanbaxan sameynayna cid walba ha ku taageero waa inuu warqad ka haystaa laamaha amniga waa inuu warqad ka haystaa maarta ay sheegay ogolaasha markaas ayaka waxaan damaanad qaadin anaka aan maarta ay sheegay priority u leenahay in aan ku garab istaagno difaacnana wax walba oo ku sugan banaanbax walba qasaarihiisa wuxuu wataa iyo hoodiisa laakiin anaka wax information oo nala soo wadaageen ama mucaarad ha noqdo ama muxaafad ha noqdo gobolka Hiiraan ha joogay wax information ay nala soo wadaageen ama mucaarad ha noqdo ama muxaafad ha joogo oo saasa u taageerin ama saasa u soo dhaweynina inay dhahay ma jiraan sidoo kale gudoomiye ku xigeenka iyo taliyaha qaybta oo sii waramayay ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgalla ay sheegeen in ciidamada ammaanka ay ka sameeyeen magaalada beledweyne kuwaas oo lagula dagaalamayo falal lidku amniga sida ay hadalka u dhigeen waxaan saxaafadda u sheegaya laga bilaabo maanta hadda aan taaganahay go'aanka amniga ee saraakiisha amniga iyo maamulka gobolka iyo dawlad goboleedka Hirshabeelle ka soo baxay wuxuu qeexayaa in magaaladan beledweyne ciidamada amnigu tallaabo cad oo amniga laga sugaa ka qaadaan habeenkii aan ka shaqay doonaa maalintii aan ka shaqay doonaa cid kasta oo faldambiyeed gacanta kula jirto oo soo qabanana sharcigan waafajinayna haddii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala magaaladan beledweyne ay ku jiraan gawaari qaraxa iyo maarta isheeg micnii in badan oo la arkayo maarta isheeg jiro xogta dheeriga aan ku helinana waxa waayo anaka mar rabnaa in xog walba oo soo helno inaan maarta isheeg media la wadaagno waxaan rabnaa markaan soo helna ka bacdi inaan media marka u soo bandhigno waayo mas'uuliyadda waxa naga saartay dadkaas ayaga xogtaas ayadana waa la wadaagi doonaa wayna jiraan gawaaraas ayada waana ka hortagi doonaa waan qaban doonaa Cabdishakuur Maxamed Xasan Zab TV beledweyne